tiimka iyo tegitaankiisa gabadha muslimada inay tagto khaasatan markii meel rag ajaanib ay joogaan ay yihiin waa arrin khaldan waa nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri haweeneydii dharkeeda ku dhigata meel aan gurigeeda ahayn asturkii iyadii ilaahay u dhaxeeyay way dilaacisay meeshaad ku dhar dhiganayso meeshaadii ma deegaankaagiina ma meel dumar keliyana ma hatta dumarku markay wada joogaan waxa jira qaybo aan loo ogolayn inay arkaan dumarka hatta saaxiibada hatta kuwa aad wada dhalateen hatta hooyadaadii ku dhashay hatta hooyadaadii ku dhashay ee ku korisay ee adoo yarkaadii saxarada ka soo tiri jirtay markaad weynaatay waxa jira jirkaaga qaabo qayb kamid ah loo ogolayn aragto marka wax way hatta haday dumar kaliya tahay inaad dhar ka dhigato sax ma haday rag yihiin warkeeda iska badaa waa ceeb meel lagu dhaqaan lahayn waa kabiira waa dambi weyn gabadh muslimada oo rag ajaaniba hortooda dharka ku dhiganaysa waxa ay sameeynaysan ayna wax daruura ahayn ay tahay waa jimicsanaya jimicsiga asalan la baas hadaad meel asturan oo muxuu ahaay aan akhlaaqdaada iyo diintaada iyo xijaabkaaga aan dib u geysanin haday tahay inaad muxuu ahaay jimicsato oo dib ma laha laakiin inaad akhlaaqdaada iyo diintaada iyo xijaabkaaga iyo xishoodkii ku ciyaarto sax ma aha ilaahay ka xishooda buu nabiga sallallahu alayhi wasallam alla ka xishood ya alla ka xishood oo awradiina astura markaas saxaabigu wuxuu ku rasuul ilaahay ka waran hadaan keligay ah hadaan dad la joogo war nabiga sallallahu alayhi wasallam awradaada yuusan arkin illa xaaskaaga ama adoontaada mooyee markaas wuxuu rasuulku ilaahay hadaan keligay ah ka waran cidina la joogin ba nabiga sallallahu alayhi wasallam fallahu ahqqu an yustahya minhu min an-nas hadaan cidina kula joogno keliga tahay soo ilaahay la ka xishooto ma Allah kam mudan in laga xishoodo cid walba isaga kam mudan hatta hadad keliga tahay isqaawin ilaahay ka xishood gabdhaha Soomaalida dhibaatooyinka jiray kamid tahay ragga aan Soomaalida ahayn khaasatan Afrikaanka inay rag yihiin ba mar rumaysnaa qaar kamid ah wal asaf guriyahayga u joogaanba oo jikada qaar ugu jiraan ninkan ajnabiga maxaa jikada ku gali sheekh manimba waa duusan ahay madameerba waa qalab waa ninku nooc doonaa mid quruxsan mid foolxun mid ajnabi mid waxaan mid cas mid madow nin waa nin wixii kan ku soo arooray in iska astura ba kan ku soo arooray waa qalad weyn waa sidaas daraadeed hablow ilaahay ka baq ilaahay tabaaraka wa taala laga xishoodo hana muxuu ahay hal ilaaliyo akhlaaqdi diinta hal ilaaliyo waxyaalahaas aad iyo aad looga taxadaro wallahu a'lam